أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا. إخوة الإسلام، darsigeennan maanta wuxuu ka bilaaban doonaa bilowga suuratu shams. suuraddan suuratu shamsi baa la yidhaahdaa, magaceeduna waxay ka sidataa bilowga aayadda ugu horeysa oo ilaahay odhan doono subxaanahu wa tacaala leeyahay washamsi waduxaaha. suuratu shams waxay ka mid tahay suuradaha maka ku soo degay, aayadaheeduna waa 15 aayadood. suuraddan suuratu shams waxay xoogga saari doontaa marka dhaarta ilaahay uu dhaaranaya laga gudbo 2 masalo. waxaa ilaahay ka warrami doonaa qofka bini aadmiga ahi inuu sabab ku leeyahay inuu saciid noqdo ama inuu shaqi noqdo, inuu daraf ka yahay oo xisaabta hadhow la isweydiinayo mas-uuliyaddeeda isagu uu qaadi doono, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu qasab iyo sandulle iyo ikraah aanu qofku iska celin karaynin, aanu ku macsiyaysanin, ee qofka bini aadmigiihi uu qeyb ka yahay doorashada, isagoo aan maca daalik haddana iraadada ilaahay ee guud ka hoos bixi karin, haddana inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala mukhayar ka dhigay oo uu dacal kala soo gelayo ikhtiyaarka su-aalaha la weydiinayo isagu doorashadeeda. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga warrami doonaa qofka bini aadmigiihi inuu naftiisa taskiyeyn karo, uu awood u leeyahay, ama qofka bini aadmigiihi naftiisa uu ihaaneyn karo, uu duleyn karo, labadana uu mas-uul isagu ka yahay, oo abaalmarin uu ku helayo. hadduu qofka bini aadmigii naftiisa ciseeyana inuu abaalkeeda heli doono, hadduu naftiisa ihaaneeyo hoos u dhigana inuu isaga abaalkeeda uu isagu qaadan doono, oo naf waliba waxay kasbato in isaga la siinayo. khayr hadduu shaqaystana isaga iska leh, shar haddii uu kasbadana in isaga loo qabsan doono ayuu ilaahay ka warramaya. mowduuca labaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradda kaga warramaya waxa weeyaan kibirka iyo qofka bini aadmigihi marka uu diido inuu soo joogsado oo dabar xidhaba loo waayo, iyo aayaha dambe wuxuu ku dambeeyaa inuu halaag yahay. tusaale ayuu ilaahay ka samayn doonaa. tusaalahaasna ilaahay wuxuu soo qaadan doonaa qowm la odhan jiray reer thamuud. qowm la odhan jiray reer thamuud baa ilaahay tusaale usoo qaadan doonaa. qowmu thamuud waxay ahaayeen ummadihii inaga horreeyey ayay ahaayeen, waxaanay deganaayeen bilaad alcarab ayay deganaayeen, oo meel aan inaga dheerayn ayay deganaan jireen qowmkaas. qowmu thamuud waxaa loo diray nebigii la odhan jiray nabiyillaahi thamuud waxaa loo diray nabiyullaahi saalix ayaa loo diray, waxaanay deganaayeen bayna alxijaas wa tabuuk. meesha gobolka xijaas la yidhaahdo iyo tabuuk inta u dhaxaysa ayaa degaankoodu ahaa. reer thamuud nebiyullaahi saalix baa loo diray, qowm uu ka dhashayna way ahaayeen. nebiyullaahi saalix iyo reer thamuud way ismari waayeen, xaqii iyo daliilkiina way ku qanci waayeen. qur-aankii ilaahay nebi saalix usoo dhiibay iyo waxyigiina way beeniyeen. muddo dheer ayaa weerar iyo weerar celis lagu jiray, xaqa iyo baatilku ay loolamayeen. waa dambe
ayaa reer thamuud waxay isu muujiyeen inay tanaasulayaan oo haddii la muquuniyo oo mucjiso iyo karaamo iyo waxyaalo khaariqul caada uu nabiyullaahi saalix uu tuso oo uu la yimaado taasoo caddaynaysa awoodda bini aadmiga inay ka baxsan tahay hadduu keeno inay iyagu tanaasulaan oo ilaahyaalkoodan iyo asnaamtan ay caabudayaan inay ka hadhaan oo xaq haddii uu nabiyullaahi saalix adilo adag uu keeno in la raaco. arrinkaas ayay markaa go-aansadeen iyagoo aanay dhabka ahayn. nabiyullaahi saalix bay u yimaadeen, waxay ku yidhahan maandho in badanna dee muranay oo hawl badan baa ina kala gaadhay inaanu ku rumayno oo mid aynu noqonno uliya diirkeed aynu noqonno sowma rabtid haa ina keen. way kaxeeyeen magaalada caasimadooda ah bartamaheeda waxaa yaalay dhagax weyn, ilaahay baa weyne oo baaxadiisa iyo quwaddiisa aynaan qiyaasi karayn oo ayana meesha ka leexin kari waayeen oo ay ka leexleexdeen oo waddooyinka hareeraha ka mariyeen. nabiyullaahi saalix bay keeneen meeshii dhagaxu oolla. waxay dhahan saalixow sow inaynu kala hadhno ma rabtid oo waddadaada la raaco oo lagu ictiraafo oo inaad rasuul tahay lagu ogaado haa. soo inaanu ku rumayno oo tawxiidkaada data aanu qaadno ma rabtid haa. waxaanu doonaynaa dhagaxa aynu ag taagannahay ayaanu rabnaa intuu foosho oo gilgisho ololo inuu dhalo hal weyn oo weliba maxaanku idhahdaa riman oo sidkeeduna weliba uu dhow yahay oo cishaaro ah oo bishii tobnaad uurkeeda ku jirta inuu dhagaxaasi dhalo oo foosho baanu kaa rabnaa. warma dhagaxbaa foolanaya oo weliba hal dhalaya, hashaasina ay riman tahay oo weliba bishii tobnaad ay ku jirtaa. arrinku adaga dhagax foosho oo dhala dunida miyaa lagu arkoo lagu maqlay? waa mucjiso. nabiyullaahi saalix dee wax caadada ka baxsan baa la weydiiyey, dhagax inuu foosho oo haddana uu hal dhalo, hashuna weliba ay sii riman tahay. yaa subxaana allah. arrinkii nabiyullaahi saalix ilaahay buu weydiistay, ilaahay waad aragtaa qowmkaygayna in badan baan ku daalay oo aan xaqa ugu yeedhay, faftax baynana wa bayna qowmina bilxaq. ilaahu maantana kala furo oo adiga waxba kuguma aha dhagaxa weyne intuu foosho oo ololo dabadeedna inuu neef dhalo ilaahayow isoo astur oo aniga iyo qowmkaygana kala saar. ilaahay subxaana wa tacaala malag buu usoo diray. nabiyullaahi saalix markuu ilaahay baryey waxaa loogu bishaareeyey oo la yidhi saalix hasha ay kaa rabaan waxay ku xaniban tahay oo ay ku hoos abuuran tahay dhadhaabtan iyo sallaxan. maalintii ilaahay dhadhaabtan abuurayna hashu way ku hoos abuuraydo ilaahay baa hoos dhigay. ilaa iyo maalinkaa maanta ilaa iyo maalinkii hashanu diyaar bay ahayd. ilaahayna wuu yeelayaa hashaas dhagaxaasaa dhali doona oo ay ka soo dhexbixi doontaa, laakiin bishart qowmkaasu imtixaan bay ku tahay, fitnatan lahum, imtixaan iyo jirab bay ku tahay, mana rumayn doonaane hal masalo un ha yeelaan. hashaas wax dhibaato ayay u geysanin, ulyay ku dhufan yay ku xagin, waxaan taaqa iyo dhibaataa hashaasi ha badbaada un. teeda labaad, ceelka ay reer thamuud ka cabaan maalinna iyadu ha u aroorto, maalinna qowmka reer thamuud ha u arooreen oo ha loo kaltamo ceelka biyihiisa, oo maalinta hashu ay leedahay aan lagu qordinin oo aan loogu tegin. hashaasu labada maalmoodba caanaha ha ka lisaan, maalintay cabtiyo maalinta kaleba wixii caana naaskeeda ku jira wuu ku filaanaya ha listaan, laakiin wax dhibaata oo u geystaan iyay jirin. arrinkii sidii ayuu u dhacayo saacaddiiba dhagixii ayaa ilaahay ka soo hoos saaray hashii ay doonayeen. hashaa magaceeda naaqatallaahi baa la yidhaahdaa. naaqatallaahi ayaa hasha la yidhaahdaa, laakiin soomaalidu magac bay u taqaanaayo idin bacatha ayay u taqaanaa, idin bacatha. laakiin waa jumlad carabiyaho macnaheeda in maanta u tegi doono haddii aan la yidhaahdo oo idin bacatha bay yidhaahdaan. waa kii ninkii shaacirka soomaaliga odhan jiray idin bacatha awrkay dhashiya aarankay wadatay
aakhiro nimaan geel lahayn lama ammaanayn marka idin bacatha magaca qur-aanku u yaqaano hasha ma aha ee naaqatallaahi baa la yidhaahdaa idin bacathana waa jumlad kale oo macnaheeda xambaarsan oo aynu sheegi doono qowmkii markii ay hashii kalkeedii iska cabto iyana kalkoodii ay cabbaan ayaa arrinkii qaadan waabuu ku noqday warma qowm dhan oo ummad dhan ah ayaa kal ceelka u arooreysa halna kelideed bay ceelka kal u arooreysaa oo haraad baaba ina dilay war ku noolaan kari mayna sidane war hasha maynu iska basrino oo si uun yeelo dabadeedna waa la tashadayoo nin qudaar binu saalif la yidhaahdo oo shaqi ah oo aada iyo aada u hoog badan ayaa yidhi aniga iigu duceeya ana hasha dili doono kiibay u direen way daba agoogeen sacabkay u garaaceen way sii daba mashxaradeen hashiibuu laacay wuu dhuuntuu ku dhuftay hashii way dhimatay 3 maalmood ka bacdi baa iyagiina la halaagay markii ay wacdigii iyo ballantii ay la galeen rasuulka ka baxeen markay martidii ilaahay naaqadii ilaahay markii ay dileen islaamnimadiina ay diideen ilaahay wuu halaagay subxaana wa tacaala intaasay suuraddan qaaliban ka warramaysa qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi washams waxaan ku dhaartay cadceedda wa duxaaha barqada cadceeddu ay samaysana waan ku dhaarto dee cadceed iyo barqa ma kala hadhaan barqada ay cadceeddu samaysana waan ku dhaartay walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa goorta talahaa cadceedda uu ka daba yimaado soo raaco oo marka 15 haddaad u fiirsato cadceeddu markay godka gasho isna wuu soo daba raacaayo adduunyadu iftiimiya isagoo nuurkiisa la yaabo walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa goorta talaahaa cadceedda uu ka daba yimaado ee uu soo dabagalo ee adduunyadu labada xilliba iftiinka iyo nuurka ay weheshanayso wannahaari maalinkan ku dhaartay idaa goortii jallaahaa cadceedda uu faydo cadceedi waqti maalin unbay timaadaa cadceed iyo maalinina ma kala maarmaan oo ma kala go-ayaan ilaahay labadii islaazimayay buu ku dhaartay wannahaari maalinkan ku dhaartay idaa goorta jallaa uu faydo haa oo cadceedda ah maalinkiibaa laga dhigay sidii wax fayday maxaanku idhaahdaa cadceedda aragtideedii waleyli habeenkan ku dhaartay idaa yakshaahaa marka uu iftiinka cadceedda daboolo oo habeenkiina daah lagu soo rogay cadceedda oo kalaa laga mathelay waleyli habeenkan ku dhaartay idaa goorta yakshaa uu daboolo haa oo cadceedda ah wasamaa'i samadan ku dhaartay wasamaa'i wamaa banaahaa wasamaa'i samadan ku dhaartay wamaa iyo alladii allihii oo banaahaa dhisay ama aynu maada masderiye ka dhigno aynu dhaha wasamaa'i samadan ku dhaartay wa bunyaanihaa iyo dhismaheedan ku dhaartay markaa maadaas ayaa marna masderiye aynu ka fasirnay marna aynu isa mawsuul aynu ka cabiro alladii oo kale la macnaa wasamaa'i samadan ku dhaartay wamaa alladii allihii baan ku dhaartay banaaha dhisay ee taagay wasamaa'i samadan ku dhaartay wamaa banaaha e wa bunyaaniha dhismaheeda ayaan ku dhaartay waalardi dhulkana waan ku dhaartay wamaa alladii allihiina waan ku dhaartay daxaahaa fidiyey ee waasiciyey ee ballaadhiyey waa allo ayaa daatadiisa labada jeerba ku dhaaranayeen wanafsin naf oo dhan baan ku dhaartay wamaa alladii allihiina waan ku dhaartay sawaaha dhammaystiray baan ku dhaartay naf kasta allihii dhammaystiray ee siday u noolaan lahayd u habeeyey baan ku dhaartay oo fa alhamaha allaha baray bini aadmiga fujuuraha xadgudub wixii ahaaday nafta wixii xadgudub ku ah allaha u caddeeyey wa taqwaaha naftu siday ilaahay uga cabsan lahaydna ilaaha u caddeeyey ee jaahilnimo iyo aqoon darro iyo ambiyo la-aan iyo kutub la-aan aan u sii daynin oo bini aadmiga aan ku odhan laguma dhaamee dhaqaaq ee nebiyaal iyo ambiye iyo kutub ka daba keenay ayaan ku dhaartay baa ilaahay yidhi fa alhamaha ilaaha baray fa carafaha ilaaha baray fujuuraha nafta faajirnimo waxay ku mutaysanaysay ilaaha baray ee fujuurka waa xadgudubka arrimihii waxaan fiicnayn ee fujuura allaha dadka baray ee nafta baray wa taqwaha nafta alla kacabsigeedana allaha baray ayaan ku dhaartay sababtii markaa loo dhaaranayay ee dhaarta intaa la eg loo soo gogol dhiganayay waa tan jawaabteedii
وان دارتي او انتا سو مثلا إذن كل دارتي بشر يهوي قد أفلح وليباني من أحد كستو زكاها ننكي نفتي سطهرة ننكي نفتي سبربارية خير كي سمها كهجة كاسي وليباني هل أجاده وقد خاب وحا خساري وهوجي من أحد كي دسها نفتي سي حقري هوس أودجي مرتبوين كي سره جنوين كي فردوسة نعيم كي إلهي كقديي روحا سنة إنو هوجي أجاده أيو إلهي ليه وحا حقيقة خاب إنو هوجي وهنكاجي من أحد كستو دسها نفتيسة هوس أودجي وعدت هوس تيدجليه دسسة وهو سيسي بي كدغنتا نينكا نفتيسي حقيري هوس أودجي معصيه iyo xumaan iyo fujuur shaqo uga dhigay ilaa way kulli data naftu acmaashaas ninkii taas naftiisa ku carbiyay samee sharafteedii hoos ugu dhigay kaasina wuu hoogay marka halka ilaahay wuxuu inoogu cadeeyay qofka bini aadmigiihi samahana inuu dooran karo xumaantana isagu uu sababteeda yeelan karo kadabat thamud qowmkii reer thamud la oran jiray way beenisay rasuulkeedii bay beenisay bitaqwaha xadgudubkii ay la timid dartiis bisababi طغyaaniha markii ay xadgudubtay xuduudii ay ka talowday dabar lagu xidhaba loo waayay ay iska tuurtay dabaradii bini aadmiga caqligii iyo diintii iyo kitaabkii iyo iimaankiiba markay xoortay ayay dabadeedna kibir iyo duqyaan u gudubtay duqyaankii iyo kibirkii wuxuu keenay inay xaqa beeniyaan id waqti ayay beenisay xaqii inay beenisay si cadaatay waqti oo inbacatha uu dhaqaaqo dirmay ashqaha reer thamuud kii ugu ayaanka darna markii uu dhaqaaqay ee toorayda qaatay inbacatha uu sarakacay weeye waa dhaqaaqay waxay beenintoodii sii cadaatay ama wuxuu kibirkoodii sii cadaaday id goor oo inbacatha uu dirmay oo dhaqaaqay ashqaha reer thamuud keedii ugu shaqisana keedii ugu hooga badnaa keedii ugu ayaanka daraa habaarqabaha ahaa markii uu dhaqaaqay culimada tafsiirku waxay yidhahdaan ninkaa magaciisa qudaar binu saalif bay yidhahdaan wallahu aclam marka ninkaasi markii uu dirmay ayaa hoogeedii hankaageedii kacay faqaala wuxuu yidhi lahum qowmkan reer thamuud wuxuu ku yidhi rasuulullah rasuulkii ilaahay wuu la dardaarmay nebi saalix qowmkan wuu la dardaarmay oo dardaaran kama daynin faqaala wuxuu ku yidhi lahum qowmka kibray buu ku yidhi rasuulullaahi rasuulkii ilaahay saalix ahaa naaqata allaahi daruu iska daaya naaqata allaahi hashaa ilaahay faraha ka qaada wa suqyaaha wadaruu is u daaya oo uga taga suqyaaha kalkeeda ay cabbaysana war ha loo daayo laba shay yaan lagu qordinin hashaa ilaahay yaan la taabanin suqyahana yaan loogu tegin oo maalinta kalkeeda ah suqyaheeda ay kalka ay cabbaysa ah ee nowbadeeda ah maalinteedaasna yaan lagu qordinin ceelka war labadaa shay mar haddii aad rumaysan weydeen mucjisada ay iga dalbateen kullay ciqaab waa kala fogaan maysaane hashaasuun gacan ha saarina kalkeedana u daaya iyo suqyaheeda fakadabuuhu way beeniyeen oo facaqaruuha hashiina way boqnagooyeen fadamdama calayhim rabbina cadaab laba jibaara buu korkooda rabbuhum rabbigood yeelay fadamdama wuu halaagay halaag laba jibaar ah ayaa calayhim dushooda uu yeelay rabbuhum rabbigood maxaa loo halaagay bidanbihim dartiis dembigii ay geysteen aawadii ayay u halaagsameen oo fasawaaha cadaabkiina wuu ku dhammaystiray oo uu ku simay yar iyo weyn rag iyo dumar nin gaboobay nimaan gaboobinba reer thamuud gaalnimay isugu baxeen mar hadday gaalnimadii ka sinmeen cadaabkiina ilaahay waa ka simay bidanbihim baa ilaahay u halaagay oo fasawaaha wuuna ku simay cadaabkii iyo maxaa halaagii wuu ku simay ilaahay axad lagama reebin dhammaan si siman ayay cadaabkii u qaybsadeen walaa yakhaafu cabsi kama qabo ilaahay cuqbaha raacdo dambe oo ka daba timaada oo reer thamuud u aar qaadaysa oo odhanaysa nadow baxi iyo nadow mari ilaahay ku odhan doonta ilaahay taa ka baqan maayo reer thamuud intay ka tiro la egaayeen dhulkaa lala simay wax allaaliyo wax cid ka daba timaada ilaahay oo aano
iyo inay aarsato u daba socotaana maba jirto. ilaahay taa ka baqan maayo. walaa yakhaafu rabbi ka cabsan maayo cuqbaha in laga daba yimaado oo la yidhaahdo reer thamuud naga dowmari oo magtoodiina sii oo arrinkooda nagala hadal. arrinkaas mid ilaahay subxaanahu watacaala uu ka baqanaya maaha. cid allaaliya cid u doodaysa iyo cid loo yar u noqon kartaana qowmkaa la halaagay ma jirto. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. maantana cashirku halkaa inoogu joogo.